nin dhalinyaro ah oo diin iyo akhlaaq wanaagsan lahaa, ayaa waxa uu ka shaqaynayay shaqooyinka sarsare mid ka mid ah waddamada qaaradda Yurub. Markii uu ku fikiray inuu guursado, waxa uu ku soo laabtay waddankiisa si uu u guursado gabadh ka soo jeeda waddankiisa si ay u ilaaliso asaga. Sidii uu jeclaa ayuu Alle u suurageliyay, waxa uuna guursaday gabadh qurxoon. Waa ayna la safartay, waxa ay ku noqdeen waddankii uu isaga ka shaqaynayay. Kadib gabadhii waxa ay bilowday barashada luqadda waddanka ay ku noolaan rabaan. Macadkiina waxa ay ku baratay gabadh ay ka dhigatay saaxiibta ugu qaalisan. 2 sano kadib guurkoodii, Alle ayaa waxa uu ku arsaaqay gabadh yar oo qurux badan. Sanad kadib waxa ay dhaleen wiil kale. Haweeneydii nolosheedii waa ay xasishay, khaas ahaan markii ay heshay jinsiyadda waddanka ay ku nool yihiin. Haweeneydii waxa ay waqtigeeda ugu badan siisay carruurteeda, waxayna mar walba u kaxaysaa meelaha carruurta ay ku ciyaaraan, iyadoo ka mashquushay ninkeeda. Asagoo ka xun dhaqamada xaaskiisa, haddana mar walba waa uu iska cafin jiray, wanaagga uu qalbiga ugu haya aawadeed. 15 sano kadib guurkoodii, ninkii waxa uu muujiyay caradiisa markii uu u dulqaadan waayay dhaqamada xaaskiisa. Haweeneydii waxay aaday saaxiibteeda si ay ugu dacwooto ninkeeda. Saaxiibteedna waxa ay ku waanisay inay ka dalbato furiin. Sidoo kale waxa ay u sheegtay in haddii ay kala tagaan, ayada iyo ninkeeda ay kala qaybsan doonaan hantida uu leeyahay, sida uu dhigayo qaanuunka waddankan ay ku nool yihiin. Haweeneydii waxa ay bilowday inay ninkeeda dhibto, ayna ka xanaajiso si uu u dilo, kadibna ayada iyo awlaaddeeda ay helaan hantida. Sidoo kale waxa ay bilowday in carruurteeda ay xumaan ka tusiso aabahood. 2 sano kadib, maalin maalmaha ka mid ah, gabadhii ayaa guriga waxay la imaatay wiil saaxiibkeed, iyadoo da'deedu markaas ay ahayd 16 sano jir. Aabihii waa uu ka carooday, waxa uuna buriyay wiilkii. Hooyadiina waa ay ka carootay arrintaas. Qaylo ayay bilaabeen haweeneydii iyo carruurteeda. Haweeneydii waxa ay dacwad geysay maxkamadda, waxaana markhaati u noqday wiilkeedii si uu u caddeeyo in aabahani uu dhibay hooyadiis. Garsoorihii maxkamaddana waxa uu xukmiyay furiin iyo in haweeneyda ay la wareegi doonto carruurta. Aabihii waa uu ka murugooday arrintaas, waxa uuna ku dhahay xaaskiisa, maxaad xumaantan iyo dulmigan oo dhan iigu samaynaysaa? Waxaan ku xasuusinayaa hadalkii Nebiga, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, ee ahaa: 2 arrimood ciqaabtooda waxa ay ku soo degdegtaa adduunyada, waa gardarsiga iyo caasinimada. Kadib aabihii waa uu iskaga tegay. Maalin maalmaha ka mid ah, gabadhii ayaa waxa ay jeclaatay nin dhalinyaro ah oo Carbeed, waa uuna soo doontay. Aabihii wiilka waxa uu dalbaday la kulanka gabadha aabaheed. Hooyadiina waxa ay ka raadisay meel walba ilaa ay ka heshay, waxa uuna ku raacay inuu soo xaadiro doonashada gabadhiisa. Maalintaa waxaa soo xaadirtay doonashada hooyada saaxiibteed. Markii la isku raacay wax walba, waxa hadashay hooyadii saaxiibteed, waxa ayna ku dhahday gabadhii, shalay waxaad markhaati xun ku furtay aabbahaa, maantana waxaad fadhisaa dhinaciisa si uu kuu bixiyo. Waxa ayna bilowday in ay ka sheekayso wixii soo kala maray qoyskan, iyadoo meesha ay fadhiyaan wiilkii gabadha soo doontay iyo aabihiis. Waxay kale oo sheegtay in gabadha iyo walaalkeed ay aabahood ku dalbadeen askar, ayna maxkamadda horteeda markhaati xun ku fureen aabahood. Qoyskii soo doontay gabadha waa ay yaabeen. Waxa uuna dhahay aabihii dhalay wiilka, wiilkeena kuma dareeno gabadh aabaheed ku dalbatay
askar. Sidee wiilkayga nafsadiisa ugu aaminaa gabadh aabaheeda markhaati been ka furtay maxkamadda horteed? Kadib waxa ay ka baxeen guriga. Gabadhii waxa ay hooyadeed ku eedeysay in ay nolosheeda ka burburisay. Guriga ayay ka tageen iyada iyo walaalkeed. Haweeneydii waxaa soo martay maalmo ay weysaneyd ilmaheeda iyadoo aanan ogeyn meesha ay jiraan, ilaa aabihii uu ka soo wacay oo uu u sheegay in ilmaha asiga ay la joogaan, uusan ka mancinaynin ama uusan ka diidaynin in ay soo booqato si qalbigeeda uu ugu xasilo. Hooyadii waa ay murugotay, waxa ayna ka shalaysay waxa ay samaysay. Markii ay dareentay kalinimo, gurigii weynaa ay doonaysayna uu noqday mid faaruq ah. Markii ay booqasho u soo aaday ilmaheedii, waxay u cudur daaratay kii dhalay ilmaheeda ayadoo ilmeynaysa. Waxa ayna ka raaligelisay wax walba oo ay ku samaysay. Waa uu cafiyay, waxa uuna siiyay fursad kale si ay ugu soo noqoto dulmigeeda. Dib ayuuna u guursaday. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.